musuqmaasuqa maankeenu gatay laakiin se garashadeena yuuna gadanin waa inaan gacan bir ah ku qabanaa musuqmaasuqa. musuqmaasuq marka dawladdeenu aysan lahayn musuqmaasuq iyo waxay sawmarin sidee ayay noqonaysaa tayada iyo nidaamkeena dawladnimo ee Soomaaliya. daawadayaal waa faallo kooban oo aan idinkaga diyaarinay musuqmaasuqa iyo wax sawmarinta ragaadisay dalkeena iyo dawladnimadeena Soomaaliya. waxaan si kooban u iftiimin doonaa heerka musuqmaasuqa ee dalka iyo sababta Soomaaliya sanad walba kaalinta ugu hooseysa wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka ay uga soo gasho. warbixintan ayaa kugula wadaagaynaa macluumaad aadan ogeyn, balse marka hore daawadow si shargaree muuqaalka nooleegna saar kuna soo biir boggeena Facebook ee halbeega wararka si aad ula socoto xogaha warbixinada iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. waa hagaag aynu ku horeynee ficilada ragaadiga ah ee dib ula hara ummadaha musuqa uu u yahay qayb ka mid ah nolol maalmeedkooda. waa caadiyan inta aad ku arki karto maamul kasta oo ka dhismay dalka tan iyo madax bannaanideenna heerka la kala joogo ku dhaqankiisa unbaa kala sarraysa. ha yeeshee taariikhda musuqmaasuqu waa mid la soo hanaqaaday bilowgii dawladnimadeena Soomaaliya. sidaa darteed dib markaad u tiriso waxaa musuqu uu ina biday ama nooga lumay gadaashiis, waxaan ogaanaynaa inaysan jirin wax laga mahdiyey ficiladiisa. nasiib darro 50 sano dheeraad kadib oo dalku isku diyaarinayo hanashada sharafkii ka lumay iyo wax la qaybsiga ummadaha qayrkiisa, weli boogtii musuqu nagu dhigay lagama bogsan. su'aalaha maankayga daaliyey waxaa had iyo jeer ugu weyn, war musuqu miyaan weli loo arkin musiibo qaran? dabcan maya. haddii aan musiibo u arki lahayn musuqmaasuqu lama waayeen sidii looga gegsan lahaa. sooyaalkeenna waxaa ku xusan in dawlad kasta oo dalkan soo martay ay si cad u dhaqangelisay falsafadda xun ee wax sawmarinta. marna ma dhicin in wax la iska weydiiyo hadimada musuqa iyo sida looga adkaan karo. wax fudud ayay iska noqotay in dawlad walba midda ka sii dambaysa ay dhaxal ahaan ugu reebto raadka musuqa. caqabadaha ragaadiya horumarka dalal badan oo qaaradda Afrika ku yaala, musuqa waa inta kaliya ee la degtay waxqabadkeeda, inkastoo aan si dhab ah loo fahmi karin sababta qasbaysa ku tiirsanaanta xad-dhaafka ah ee musuqmaasuqa. haddana taasi kama dhigna in aan laga adkaan karin. inaad aragto sida lama huraanka ah ee qof walba dantiisu kaga xirtay adeegsiga laaluushka micnaheedu ma ahan inaanan sida fiican looga weecan karin. sideedaba marka aan ogsoonnahay in duni aan musuq ka jirin ay naga nolol iyo barwaaqo badan tahay, waa inaynu isweydiinaa waayo aragnimada ay ku heleen nolosha ka madax bannaan musuqmaasuqa. markaas ayaan garowsan karnaa waxayna la gudboon si aan ugu takhallusno. marka dawladdeenu aysan musuqmaasuq lahayn, waxaa sare u kacaya dakhliga qofka Soomaaliga ah, waxaa hoos u dhigmaya heerka gaajada iyo macluusha ay la diihalsan yihiin kumanaanka Soomaaliyeed ee abaar kasta ku rafaada. waxaa la helayaa shaqo abuur qof walba u suurageliya inuu noloshiisa u helo dakhli uu ku maareeyo. dembiyada iyo gabadfalada ku dhasha ismaandhaafka iyo sadbursinimada ayaa yaraanaya. dagaalka sokeeye ee soo noqnoqda kuwaas oo ku dhasha ku heshiin waaga iyo wax sawmarinta ku salaysan nintooxsiga ee khayraadka la wada leeyahay ayaa sidoo kale tirmi doona. waxaa intaasi dheer, dawladdu waxay helaysaa shacab u aaminsan heebadna ugu ah sida awrka hayin. taas weliba waa marka aad maqasho in shacab weynaha adduunku ay dawladooda aan musuqa aqoon ay u garab istaagaan xilliyada adag oo ay ku jiraan. waayo dadweynuhu markay og yihiin in dawladoodu aysan xatooyo kula kacaynin hantida ay ku heestaan naqaladooda, xitaa waxay ugu dhigi karaan rahan amaahna way u siin karaan si dhaqaalaheeda ugu kabato dawladdaasi. tusaale ahaan 70meeyadii markii qaaradda Aasiya ay gashay dhaqaale burburka iyo hoos u dhaca ku yimid lacagta, Koonfur Kuuriya waxay ka mid ahayd dalalkii ka badbaaday burburkaasi. waxaa lagu yaabay ayaa ahayd in shacabka dalkaas ay isugu soo baxeen xarumaha dawladda iyagoo sida dhammaan kaydkii ay guryaha ku haysteen. haweenku waxay keeneen gebi ahaan wixii dahab ahaa oo ay lahaayeen. raggu
waxay qasanadahooda ka soo saareen raasamaalkii ugu jiray koontadooda markii ay dowladdu dhaqaalaheeda ku kabtay lacagta ay shicibka iska ururiyeen. waxaa u fududaatay inay ka badbaado musiibadii dhaqaale xumi ee soo fosaatay dalalkii ku yeelay qaaradda Aasiya. sidaa awgeed halka aynu meel dheer iyo dhinacyo badanna ka raadinayno yeelashada iyo noqoshada ummad isku filan, waxaan qabaa inaan ka bilowno ciribtirka musuqa. dhammaan mushkiladaha kale waxay baabi'i doonaan marka laga adkaado nabadgelyada oo ah aasaaska iyo baahida koowaad ee ka maqan Soomaalida oo dhan. xitaa waxaa lagu heli karaa iyada oo meel looga soo wada jeesto falsafadda xun ee musuqa, waayo amnigu waa nimco, wuxuuna ku waaraa cadaalad, wuxuuna ku dumaa cadaalad darri. cadaalad darriduna waxay ku hoos nooshahay musuqmaasuqa. si kastaba maanta oo aan leenahay aqoon-yahano aad u badan oo xogogaal u ah isbeddelka dunida ka jira, siyaasaddana qayb ka ah, waa muhiim in ay waayo-aragnimadooda ku daraan alla ka cabsi. waayo markii nebi yuusuf uu boqorkii Masar weydiisanayay inuu xilka u magacaabo, wuxuu isku sifeeyey inuu yahay aamin aan ku tagrifalin ama aan xadaynin xoolaha ummadda iyo aqoon-yahan cilmi buuxa u haysta hawsha loo igmaday. markaas ayaa si la mid ah Koonfur Kuuriya loo heli karaa shacab aaminsan kuna kalsoon dowladooda. inkastoo ay ka sokayso dadaalada aan hayno, waxay markasta ku dambeynayaan dhicis iyo madhalays aan lahayn natiijo loo aayo. Soomaaliya waxay markan ku jirtaa marxalad soo kabasho dowladnimo oo ku dhisan nidaamka awood qaybsiga beelaha 4.5, waana mid ka mid ah waxyaabaha ragaadiyey ama la haray dowladnimadeena Soomaaliya. in beel dhan lagu tilmaamo nus, kuwa kan lagu tilmaamo inay yihiin kuwa buuxa, waa mid kale oo cuqdad iyo kala fogeyn ku sii beeraysa beelaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. dowladdan cusub iyo xukuumadda dan qaran ee Xamse uu hogaamiyo waa muhiim inay la yimaadaan dabacsanaan, hufnaan, aaminaad iyo kalsooni shacab si meesha uga baxo musuqmaasuqa. Soomaaliya sanad walba waxay ka soo gashaa kaalinta ugu hooseysa wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka, waxayna ka koraysaa kaliya Yemen iyo Suuriya oo iyaguna colaado iyo dagaalo sokeeye ay ragaadiyeen. maanta waxaan taagannahay 2022, waa maalin iyo sanad ku habboon in dowladnimadeena ay ku disqaado la dagaalanka musuqmaasuqa, lagu baraarujiyo dhammaan waxyaha kala duwan ee dowladda in ay ilaaliyaan hantida qaranka iyo adeega shacabka ay u hayaan. waxaa markaas imaanaya shacab iyo dad wada raacsan dowladooda oo taageero weyn u haya. haddiise musuqu uu noqdo caado dhaqameed soo jiitamayay muddo ka badan 50 sano, Soomaaliya ma noqon doonto dowlad horumarta, lugaheeda ku istaagta, iyadana wax qabsata. waa talo iyo tusaale ay idin siinayaan bahda halbeega wararka. warbixintanna ma qusaysa ma ahan mid aan ku dhaliilayno dowladdeena hadda curatay, balse waa talo iyo tusaale aan u soo jeedinayno madaxdeena qaranka iyo dadka hogaamiya dowladnimadeena si shacabka iyo dowladdu ay isula jaanqaadaanna. waa muhiim marka hore in meesha laga saaro kansarka Soomaaliya dhibaatada ku haya ee la yiraahdo musuq iyo maasuq ama musuqmaasuqii waxay soo marin, taas oo Soomaaliya ka reebay asaageed iyo dunida horumartay. daawade adigu taladaadu waa inoo muhiim. musuqu maxaad ka aaminsan tahay? maxayse kula tahay qaabkeese ugu fudud oo lagu hortagi karaa? inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiyadiina iyo talooyinkiina waynu qaadan doonaa. dib ayaana reaction uga samayn doonaa si aan u ogaano heerka shacabkeenu ay ka taagan yihiin dhibaatada musuqmaasuqa dalkeena uu ku hayo. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.